السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركلة يتحنيني طريقة جوشة قيبتي شناد قيبتي أفراد وحي إنو مريسي markii wiilka yaraa ku fashilmaayo shirkaddii uu aas-aasay dabadeedna uu xaakimkii u imaanayo kadibna uu ku dhahayo wax walba waan sameeyey laakiin ma gaarin wax guul ah ee maxay tahay sababtu dabadeedna xaakimku uu u sharaxayo sababta keentay inuu fashilmo oo ah inuusan talada u dhiiban kii sabab walba idankeeda lahaa oo ah Alle subxaanahu wa tacaala markii arrintu ay halkaa marayso xaakimkii ayaa wiilkii yaraa ku yidhi wiilyahow kaalay halkaan imow hadda ayaan kow ka bilaabaynaa macnaheedu maahan inaan eber ka bilaabayno waayo asbaabihii oo dhan waad la timid asbaab walbana waad garanaysaa waayo khibraddeeda ayaad leedahay laakiin waxaad ilowday shay aad u muhiima kaas oo ah haddii aad doonayso inaad guulaysato waxaa laga maarmaana inaad marka hore fashil iyo waqti adag aad dhexda u fadhiisato maxaa yeelay fashilku waa bilowga guusha dhibaataduna waa bilowga raaxada sida habeenku u yahay bilowga maalinta oo kale sidaa awgeed suuragal maahan inaad shay aad qabanayso wanaaggiisa dareento ilaa aad marka hore dhedhamiso taas lidkeeda oo ah dhibaato aad u fara badan oo dadka qaarkiis noloshaba uga quustaan sheekadu markii ay halkaas marayso ayuu wiilkii yaraa weydiiyey xaakimkii sideen u bilaabaa imika halkeesa ka bilaaba hawshayda waqti xaadirkan maxaa yeelay imika sabab walba waan garanayaa iyo sida aan sababaha u adeegsanayo sidoo kale waxaan garanayaa sida wax loo qorsheeyo sidoo kale waxaan garanayaa sida wax loo fuliyo oo hawl la iskugu dabarido iyo sida loogu baahan yahay inaan yeesho himilo waana garanayaa in loo baahan yahay inaan noqdo qof furfuran oo flexible ah iyo sida aan u daba joogaayo hamigayga iyo arrimahayga iyo dhammaan wax walboo la iiga baahan yahay ha noqoto karti iyo adeeg ha noqoto mid dhaqaale ha noqoto dabacsanaan iyo dhoolacadayn si walbay xaaladdu ahaato haddaba maxaa la iiga baahan yahay inaan sameeyo ayuu wiilkii yaraa weydiiyey xaakimkii ayaa wiilkii yaraa fiiriyey isaga oo dhoolacadaynaya wuxuuna ku yidhi iminka ayaad i weydiisay su'aasha saxda ah tanina waxay noqon doontaa tillaabada ugu horraysa ee dariiqa guusha iyo inaan abuurno guusha abuurka guushuna waa ku xidhnaanshada ilaahay alla maxaa ka weyn deganaanshaha nafta marka aad ilaahay ku xidhan tahay adiga oo xor ah oo aan isaga mooye cid kale caabudayn ku xidhnaanshada ilaahay iyo ku dhaqanka amarkiisa iyo ka tegidda wixii uu kaa reebay taasi waxay kaa dhigaysaa inaad istaagto meel ay qoyska iyo bulshaduba kaaga daydaan markaas ayuu ruuxu dhedhamiyaa macaanka iimaanka oo macaan ka dambeeya uusan jirin sida uu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa uu dhedhamiyey iimaanka macaankiisa ninka ilaahay rabbinimo uga raalli noqda islaamkana diin ahaan uga raalli noqda maxamedna nebinimo uga raalli noqda ku xidhnaanshada ilaahay waxaa ka turjumaayo arrimahan soo socda kow rumaynta ilaahay wiilkii yaraa ayaa ku jawaabay anigu ilaahay waan rumaysanahay xaakimkii ayaa ugu jawaabay waan ogahay ee waxaa lagaa rabaa inaad mar walba xasuusnaato ilaahay goob walba oo aad joogto calaamadaha mu'minkana waxaa lagu gartaa inaad dareento macaanka muslimnimadu leedahay sidoo kale calaamadaha lagu garto iimaanka macaankiisa waxaa ka mid a inaad naftaada aaminto caafimaadkaaga aaminto dadka naftooda maalkooda iyo cirdigoodana nabadgeliso ruuxa mu'minka ahi ma xado been ma sheego khiyaano ma sameeyo intaasba daahir ayuu ka yahay sidoo kale ruuxa mu'minka ahi akhlaaqdiisu way fiican tahay ilaa heer sare sidaa awgeed ku xidhnaanshada ilaahay waxay kaa dhigaysaa inaad rumaysay iimaankaas oo aad ilaahay ugu dhowaanaysid ruuxa mu'minka ahi waa midka ay dadku ku aaminaan xoolahooda sirtooda iyo naftoodaba kadib xaakimkii waxa uu fiiriyey wiilkii yaraa indhihiisa kadibna waxa uu ku yidhi haddaba wiil yahow ii warran adigu ma tahay ruux mu'mina wiilkii yaraa ayaa wuxuu ku jawaabay anigu waxaan ahay ruux mu'mina laakiin qaabkaas aad adigu uga hadlayso uma ihi waxaa suuragala inuu jiro ruux ilaahay rumaysan haddana dadka xadaayo isaga oo soomaayo oo salaadaayo adiguna waxaad i bartay shay aad u muhiima oo ah inuu jiro ruux dadka si fiican ula tacaamulaya sida hadalkaaga ka muuqata salaadda tukanaaya oo soomaaya laakiin dadka xadaaya oo been sheegaaya ammaanada ay dadku u dhiibtaanna khiyaanaaya ruuxaasna waxaa ku sugan calaamad ka mid a calaamadaha munaafiqiinta ilaahay isaga ayaa irsaaqadda qaybiya dembigana isaga ayaa dhaafa laakiin marka ay timaaddo xuquuqda dadka waxaa muhiima inaad saamaxaad ka dalbato ruuxaas aad xaqa ka gashay dhibtana aad u geysatay haddii aad doonayso inaad gaarto dariiqa sarraynta ilaahayna u dhowaato ilaahay kuwa naxariista waa midka ugu naxariista badan cid wax karaamaysana ugu karaamada badan ilaahayna dulmiga raalli kama noqdo sida uu wariyey imaamu muslim xadiiskii abudar xadiisulqudsi nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay ka warinaya hadalkiisa in ilaahay uu yidhi addoommadaydiiow anigu dulmiga naftayda waan ka xaaraatimeeyey dhexdiinnana waan ka xaaraatimeeyey raallina kama ihi inaad isdulmisaan
maadaama aad ku taagan tahay dariiqa guusha waxaa muhiima inaad dadka xuquuqdooda siiso deeqsinimada iyo jacaylka ilaahayna waxaa ka mid ah inaad qariso siraha dadka xanta iyo iskudirkana aad ka fogaato taasina goor dhow ayaan si faahfaahsan uga hadli doonnaa rumaynta ilaahay waxay ku gaarsiinaysaa ku-xirnaanshada ilaahay wiilkii yaraa ayaa ku jawaabay muxuu yahay iminka waxaan dareemayaa macaan aanan weligay dareemin maxay tahay sababta aan u dareemaya macaanka intaa la eg waxaan qalbigayga ka dareemayaa in dariiqani yahay dariiqii sarraynta halkaas ayaan ku joojinaynaa qaybteenni shanaad ee tixanaheenni dariiqa guusha intaan ku kulmayno qaybtan midda xigta waxaan idinkaga tegayaa guul iyo dhowlacaddayn qurux badan inaad mar walba muujisaan waa walaalkiin Saki Cabdi Yaasiin.